milyan taagan waa waddanka dunida laga China maanta dunida meel kasto ka mid ah productkiisa yaala waa waddanka labaad ee dunida u dhaqaale badan waa waddankaasi kumaanku milyan taagan waa waddanka dunida laga haybaysanayo oo waddanka nuclear power-ka oo waddanka technology-ga oo waddanka gantaalaha cirka diraya oo waddanka astronomerska ragga cirka u diraya da gantaale binaadam oo kii bilaabay inuu diro Russia de China أول راشيا يا مريكان قرا بنادم عركة ودري China سدحية وسنا بنادم عركة ودري هل كاسي مريا جاينا انت عليك وحكى صوب بلا from zero ground مهلا وحبة كتيرين وضن الدين ونقول أنا قاد كاين هلاقي وربقول مليون أو ضرب أو تهجوي أو أفيون عبية قاد كوحبابا ميركا كوهرا يه هان ميركا وحبر يبينين وحبابا كصوب waxba ka soo haraya kana waxba ka soo reebin laakiin hanbulaha binaadam han labuha indiyadan kunka milyan ee hadana gaajoonaysa caankana maanta waxay ka mid tahay dhaqaale 20 sano 30 sano soo socda dunida waxa la filayaa maxay xagga u dambaysa inay gaadho Singapore waa dawlad aad u yar Singapore waa tuulo dawlad ma waa tuulo waa 24 kilomitir baan u maleynaya square meelaha yani waxa laga yaabaa fadhiga Hargeysa inay ka weynti Singapore haddana dawladda yar inta aleg 2000 oo baa ku yaalan rajaynaya haddaan daakiradu ay qaldeen 2000 oo institute oo farsamo laga barta ku yaala shirkadka reer galbeedka Ingiriiska qura 600 oo shirkadood ka taala waa madaxweynahooda yar ra'iisul wasaarahoodu ma ninka labaad ee dunida ugu lacag badan ee mushahar qaata waxaan u maleynayaa madaxweynayaasha dunida tirada badan la nusbuka lacag badan yihiin ra'iisul wasaarahoodu waddankan yar ciidii sameeynaysa wuxuu lahaa markuu bilaabayay dhul sabqa baa la iga tagay buu leeyahay dhul meel yar oo biyo fadhiisana soomad oogid ciidda dhulka lagu dhiso dhulkoodu ciid ma la soo oogid bal adigu waddan qiyaas aan ciidda dhulka lagu daara lagu dhistana lahayn ee dabada ka soo dhoofsada ciidda daara lagu dhista cabaarad baa looga soo qaadaa maxay Malaysia siisa biyo lacabna Malaysia siisa yani muqawamaat alxayaat ma yaaliin haddana Singapore maanta waxay ka mid tahay maxay dunida dhaqaalaheedu tagay horumaray technology-geedu tagay bay ka mid tahay hal odayo maalin dhaweyd dhintay ayaa u kacay oo xadkaasi soo gaarsiiyay Korea Januubiga ma ilaahay bay rumaysantay waxba ma rumaysana Japan 150 sano ka hor waxay ka mid ahayd feudal systemkii beeraley waxba haysanin bal aan qisaydin soo naqliyo oo siharo nin la yiraahdo Dr. Tawfiq Alwaaci ayaa xikaayada soo naqliya inkastoo nadka aan baadhaan hore u helin magaca kan laakiin waa nin say sheegayaan Samura family-gu waa middle class-ka qabaa'ilka ka mid ah ee Japan waa qabaa'ilkii xaashiyada boqortooyada ku dhawaan jirtay ciidamada ahaan jiray Japan ilaa 150 sanadood buu cilaaqaad la lahaa waddankan Jarmalka la yiraahdo inta badanna saaxiibay hayeen yar oo dagaalkii labaad buu xagga Ingiriiska Japanku yara raaceen waxoogaa dagaalkii koowaad baan leeyahay waxoogaa dagaalka koowaad iyo gagaarkiisii ayay Japanisku xagga Ingiriiska mareen laakiin inta kale Jarmalkay saaxiib ahaan jireen dagaalkii u dambeeyayna la wada jabiyay waxay isku dayday Japan arday bay diratay la rabo inay wax ku soo bartaan waddankaasi ninkan magacan leh baa ka mid ahaa baa la yiraahdaa Hamburg University buu tagay waxbarasho bilaabay waa group arday oo la soo diray waxaana loo soo diray aqoonta Germany in la soo raro Germany-na waa meelihii galbeedka hogaaminayay technology-giisa sideedaba technology-gu meelaha ugu badan oo ku faafay waddanka Jarmal baa ahaan jiray wuxuu leeyahay ardayga kani markaan master qaatay oo auto mechanics buu dhigtaa الميكانيكا markaan theory-yadii iyo bookskii iyo wixii ayay macmal bana geey waayeen buu yiri theory ma loo dhigaa nadariyaad jaamacad iyo book iyo drawing iyo waxun bana lagu wadaa buu yiri meel farsamaba waan arki waayay anna waxa iga go'an buu leeyahay inaan waddankii horumariyo waddankana waa ku horumarin maayo si aan yeelo waa inuu tala kala keenaa
maalintii